بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي waxaan muuqanayo in isku jeedid la soo jeediyay Soomaaliya iyo Kenya oo ay dalka mandarada ku yaalo oo imaanta Ethiopia hadda ay maaragtay awood badan tahay inay isku dayayso inay ka shaqeyso sidii ay arintaasi u dhexgelin lahayd wadahadalna looga yeelan lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. rajada marka laga filan karo ka war xilligan rajada laga filan karo hadda waxay ku xiran tahay Kenya in ay maaragtay samayso in ay qiimeyso waxyaabihii ay samaysay wala arko in Kenya ay talaabo diblomaasiyadeed oo qalad ay qaaday markay soo eegtay safiirka Soomaaliya Kenya waa u yeeran kartaa laakiin waxay ku dartay in la soo eegay safiirka Soomaaliya waxay ku soo dartay talaabooyin aan markaas siyaasiyan aan ku habboonayn dowlad darisa oo ah in Soomaaliya ay sheegtay in ay qabatay ku soo fidi doonto waxa soo dhan Kenya gashay أهلنا وحاولوا أبي أحمد هرنا شلون طبعاً والله المذكور وحاولت أبي أحمد يجو إزاي أفورك يجو مدحنا كينيا وهورو كينياتا أردت أن تاسي كده تاسي كده لطي وحنا أي ما مقطعين أدري إن شركة مركوه الرئيس العادي كذا أو هذا وزيرك دولة شاقينا ومش كان كنت أصلا صوماليا والله متابعه أردت أصلا هواي wada hadal ka galaysan qofna inay jirto ama ka gali karto sida marka arintan waa in xiriirka la aadiyo in xiriirka la soo celiyo in wixii kale oo maartay isku dhawaasha in laga shaqeeyo waxa kale oo jiro bayaan oo maanta ay soo saartay lagu daabacay maartay Twitterkiisa risaare abi wuxuu ka hadlay arrimaha in yani sidii loo soo jiraa xiriirka labada dal kala hadli doono iyo qodobo kale oo ku saabsan sidii Soomaaliya iyo maaragtay arrimaha dekedaha uga wada qaban lahaayeen sidii Soomaaliland ay uga qaybgeli lahayd wada hadalana maaragtay Soomaalida in maaragtay qayb uga qaadan lahayd qodobo noocaas oo maaragtay Twitterkiisa inuu kala hadlay la afar qodob oo ku soo qaaday mid kamid ah marka waxay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya dad badan waxay isweydiinayaan sida xalka lagu gaari karo madaxweynaha Soomaaliya ama si guud dowladda Soomaaliya waxay sheegaysaa in aanan laga laaban doonin dacwadda badda maxkamadda adduunka hortaala dhanka kalena Kenya warkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay xiisadda labada dal ku aadan waxay ku sheegtay inaysan marnaba iyadu ka tanaasuli doonin badda Soomaaliya ee ay sheeganayso taasoo macnaheedu yahay in go'aan adag ay labada dhinac kala taagan yihiin imika maxaa xalka sidoo noqon kara ay kula tahay halka wuxuu noqon karaa in Kenya horta ay samayso iyada qiimeyso hadaladii waxyaabihii ka tagay ayna dib uga noqoto xiriirkana markaas sidaas lagu caadin karaa laakiin arrinta oo muhiimka ah oo in meesha la keeno ma aha tan badda oo hadda laga wada hadlayo sababtoo badda dowladda Soomaaliya waxay saartay mowqif oo aanay bedeli karin xitaa dowlad ahaan sababtoo dowladda waxay mataa shacabka Soomaaliyeed arrintaasi waxa ka go'an in aan lagama taabtaan ay tahay oo in laga hadli karo dawladda badda ee ku jirta hay marka waxa laga wada hadli karo waxay tahay warshada xiriirka loo caadiya qaladadii ay maaragtay Kenya gashay dowladda Soomaaliland way sheeganaysaa in wixii ay laga galay dowladda Kenya marka waxay aragtay in ay arrintan u socon weydo sababtoo waxay la shaqay 15 wadamada ku jiro maaragtay Security Council-ka ama amniga golaha amniga waxaan soo dhaw isku daysay dadaal badan ay qaatay wax badan ay samaysay oo dhinaca dawladda laakiin waxa uu soo muuqatay inay suurtagalahay arrinta qaabka ay hadda ku doonayso inay wax ku socon karin marka inay badasho ku qasbanaatay waxa la dhihi karaa diblomaasiyad ahaan waxay noqotay in ay hadda la hoos gasho Ethiopia oo ay arrintaasi maaragtay ay tiraado hal caadi xiriir taas marka waxaan qabaa in lala wadi karo in xiriirka la caadiyo in xiriir fiican uu dhex maro sida maadaama laba dal sirfiin laakiin waxaan laga hadli karaa arrinta ku saabsan badda waa lama taabtaan dadka Soomaalida oo ogyihiin inta aan kartana ma ugu dambeyn marka loo fiiriyo sida diblomaasiyadda loo dhaqmo ama marka dalal ay ka dhaxayso xiisadda diblomaasiyadeed sidan oo kale sida lagu heshiishiyo ama qaababka loo maro maxay u dhigantaa in madaxweyne Farmaajo la geeyo Nairobi miyay ka habboonayd in labada mas'uul ay ku kulmaan Addis Ababa ama meel ka baxsan Nairobi iyo Muqdisho marka loo fiiriyo qaababka loo maro marka xilligan oo kale ama sidan oo kale ay wadamadu xurguf u dhex barto horta waa sheegtay dowladda dalku markay qabtaan dal saddexaad ay tagaan laakiin haddana waxba kuma jirto dawladtii karta laakiin ma aha in boqofka aad qabtid aad bedelaysid
waxay ku xiran tahay dalkiisa xitaa haddii looga tago farfaraan oo waxay muujinaysaa iyo diblomaasiyad dowladda soomaalidu bisayl ay yani ka muuqdo inay rabto inay xiriirka caadiyeyso inay rabto inay Kenya si fiican uga macaamiso oo laba dal u diraysa oo xiriir fiican oo qoto dheer u ka dhexeeya tahay laakiin maaha arrin oo laga hadlaya inta barda saan isleeyahay waa ani aragtida aan qabo ama aan aaminsana marka inta kale laakiin waa laga hadli karaa in loo tagana wax weyn maaha in maaragtay loogu tago isaga laftiisa waxay saaraysaa culays kale oo weyn waxayna muujinaysaa dowladda soomaalidu in ay diyaar u tahay in ay maaragtay wada hadalka gasho inay soo dhaweyso inay caadiyeyso xiriirka u dhexeeya kenyana waxa uu arrintaas markii diblomaasiyadda la fiiriyo waxaa la dhihi karaa oo looga adkaaday iclaamkooda ama miidiyahooda laftooda tilmaamaya in diblomaasiyaddaas looga adkaaday wasaaraddeena khaarijiyadana ay uga adkaatay dowladda Kenya qoraalkii ay soo qortay sida ay uga gaabsatay in ay la sii qaato sababtoo Kenya waxa uu madaxweynihii iyo xukuumaddiisii intuu la shiray waxa la eedeeyay Soomaaliya waxa lagu tilmaamay Soomaaliya inay dal cadow tahay waxa lagu tilmaamay oo kale in cunaqabateyn lagu soo rogi doono haddii aanay ka noqon arrinta ku saabsan inay ku tegi dooneen ha ka dhula waxaas oo dhan ay samaysay ma u noqonayso arrin oo fasiraad ama macquul ah ma u noqonayso waxa ay ku doodayso marka Kenya waxa u muuqatay in ay marada ka dhacday way maanta u baahan tahay in marada loo celiyo oo dib maaragtay arrintaas loo galo markasta laakiin kama maqnaan karto aniga siyaasiyan diblomaasiyan waxay war fahmi karaa kama maqnaan karto inay ugu soo dhawaanayso in arrinta wada hadalka badda dib looga soo celiyo oo igar ay gasho arrintaas marka dowladdu way ka foojigan tahay mowqifkan sida hadda wasiiru khaarijiyaha wasiir dowlaha uu sheegay mowqifkaas waa mowqif lama taabtaana oo laga dhaqan karin badda Soomaaliya waxaa iskale anuga kunka sano oo soo socota oo ilaahay waqtiga adduunka ugu talagalay waxa uu ahaa cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo horey u soo noqday danjiraha Soomaaliya ee Suudaanta Koonfurta markaan ila falanqeynayay natiijada laga filan karo wadahadalada birrito ka bilaabanaya Nairobi ee u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Kenya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo halkaasi wadahadalada hormuudka u ah